fadlan ku xidhnow kanaalka oo taabo subscribe sidoo kale fura gambaleelka ama jiliska si aad ula socoto wax kasta cusub oo aan soo gelin. quudinta jidhkaaga ee cuntooyinka qaarkood ayaa kaa caawin kara inaad sare u qaaddo habdhiska difaaca ee jidhka. haddii aad raadinayso siyaabaha loogu hortagayo hargabka xilliyada qaboobaha, xanuunada caabuqa ama infekshanka iyo kuwa hoos u rida habka difaaca, tallaabada koowaad waa inaad booqataa dukaanka xaafadaada. qorshaha cuntooyinkaaga waa inay ku jiraan kuwa aynu sheegi doono oo leh awood rabbaani ah si ay kor ugu qaadaan difaaca jidhka iyo ka hortagidda cudurrada. walimkana qadar yar oo ogeysiisa. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo, comment bixi, like saar, ku jiliska ama gambaleelka si ay markiiba kuu soo gaadhaan barnaamijyadaanu soo gelino siina shagre. mahadsanid. midhaha citrus dadka badankoodu waxay u jeestaan isticmaalka vitamin C kadib marka uu ku dhaco hargab ama duray, sababtoo ah wuxuu ka caawinayaa dhisidda iyo kor u qaadidda habka difaaca ee jidhka. vitamin C waxa uu kordhiyaa soo saaridda unugyada dhiigga cadcad. kuwani waxay furow yihiin in la dagaalamaan cudurrada. midhaha ku qaniga ah vitamin C ee caanka waxaa ka mid ah canabka, liin dhanaanta iyo liin macaanta. sababta jidhku ma soo saaro isla markaana ma kaydiyo vitamin C. waxaad u baahan tahay vitamin C maalin kasta si loo joogteeyo caafimaadka iyo kor u qaadidda habdhiska difaaca ee jidhka. badana dhammaan midhaha citrus waxaa ku badan vitamin C. waa noocyo kala duwan oo aad si sahlan dooran kartid si aad ugu dartid cuntadaada. toonta waxaa laga helaa cuntooyin kasta oo adduunka lagu cuno. waxay ku daraysaa dhadhan dheeri iyo xiise gaara cuntadaada, waana mid faa'iido ugu fadhida caafimaadka qofka. xadaaradii hore waxay xaqiiqsadeen waxtarka toontu ay ku yeelatay ka hortagidda daweynta cudurrada faafa. sida laga soo xigtay hay-adaha caafimaadka qaarkood, toonta ayaa sidoo kale kaa caawin karta hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga iyo hoos u dhigidda adkaanta qarada xididdada dhiigga qaada. astaamaha kor u qaadidda difaaca ee toonta ayaa u muuqda kuwo ka yimi isku dhafka sulfur oo ay ku badan tahay maadada alaysiin. sinjibiilku waa mid faa'iido caafimaad oo wax ku ool leh, kaas oo ka kooban waxyaabo kala duwan. dad badan ayaa ku noqonaya markii ay xanuunsadeen kadib isticmaalkiisa iyo adeegsigiisa. sinjibiilku wuxuu kaa caawin karaa hoos u dhigidda bararka, yaraynta xanuunada dhuunta ama cunaha iyo cudurrada kale ee bararka keena. sinjibiilku waxa kale oo uu kaa caawin karaa yaraynta yelaalugada ama lalabada. sinjibiilku wuxuu kaa taageeri karaa inuu yareeyo xanuunada wakhtiga dheer qaata, wuxuuna yeelan karaa astaamo hoos u dhiga kolestaroolka ama subagga dhiigga, sida laga soo xigtay cilmi baaris la qaaday. babayga waa midho ay ka buuxaan vitamin C. waxaad ka heli kartaa hal xabo oo babay ah 224 qiyaasta xaddiga maalintii ee lagugu talagalay ee vitamin C-ga ah. babayga sidoo kale waxaa laga helaa ensaymka dheefshiidka kaas oo loo yaqaan babayin, kan oo leh saameyn uu kaga hortago bararka. babayga waxaa kaloo ku jira qadar yar oo isugu jira macdano iyo fitamiino sida potassium, vitamin B, folate, kuwaas oo dhammaantood faa'iido u leh caafimaadka guud ee qofka. shaha cagaaran, labadaba shaha cagaaran iyo kan madooba waxaa ku jira flavonoids, nooc ka mid ah antioxidantska. shaha cagaaran runtii waxaa aad u sarreeya oo ku badan ibigallocatechin ama EGCG oo antioxidants xoog leh. EGCG ayaa la cadeeyay inay kor u qaado shaqada habdhiska difaaca. habka khamiirinta ayaa ka dhiga shaha madow mid ay burburtay EGCG, halka shaha cagaaran kulaylinta qandacay aanay waxba ka bedelin EGCG oo lagu ilaaliyo. shaha cagaaran sidoo kale waa il wanaagsan oo laga helo amino acids, tan oo ka caawinaysa la dagaalanka jeermiska iyo caawinta unugyada dhiigga ee cadcad. huruudda waxaa laga yaabaa inaad og tahay waxyaabaha asaaska u ah ay ka kooban tahay huruuddu, kuwaas oo u yeelaya dhadhanka kuleyl xigeenka ah, laakiin waa mid hurud khafiif ah, muuqaal ahaan qadhaadh oo kulul. sanado ayaa hase yeeshee loo isticmaalayay ku daweynta bararka sida xanuunada lafaha iyo isgoysyada labadoodaba. baaritaano lagu kalsoon yahay ayaa hoosta ka xadheeqay ku badnaanshaha maadada curcumin ay tahay tan u yeeshay midabka u gaarka ah ee huruudda ah, kaana caawin karta hoos u dhigidda muruqa xanuunka kadib marka la jimicsado. Broccoli waa mid la waxtar aad u sarreeya, waxaana ku jira fitamiino iyo macdano. waa mid ay ku jiraan fitamiino sida vitamin A, vitamin C iyo vitamin E, iyo sidoo kale antioxidants iyo fiber. Broccoli waa mid ka mid ah khudradda ugu fiican xagga caafimaadka. sida ugu habboon aad u ilaalin karto awoodiisa waa inaad in yar kariso sida ugu macquulsan ama gebi ahaanba. caano fadhi ama yogurt. isticmaalka caano fadhi gaar ahaan haddii ay ku jirto probiotics si joogto ah waxay xoojin kartaa habdhiska difaaca jidhka, waxaana yareysaa suurtagalnimada inaad qaaddo wax cudurra. probiotics ayaa sida la arkay waxay muujiyeen inay hoos u dhigaan bararka, taasoo lala xiriiriyo xaalado caafimaad oo kala duwan oo ay ka mid yihiin infekshanka fayraska ee ku dhaca habdhiska dheefshiidka.
waxaa intaa dheer astaamaha kor u qaadida difaaca ee yogurt waxaa qayb ka magnesium, selenium iyo zinc waa kuwo tiro yar haddana door lixaad leh ka ciyaara habdhiska difaaca ee jirka. waxaana fadhiga lagu daray vitamin D ayaa kor u qaadi kara caafimaadka difaaca xitaa si dheeriya. vitamin D waxay awood u leedahay ka hortagga cudurrada sida noocyada duriga ama hargabka. shukulaatada madow waxaa ku jira antioxidants loo yaqaano theobromine taas oo gacan ka geysan karta kor u qaadida habka difaaca jirka iyadoo laga ilaalinayo unugyada jirka free radicalska oo ah haraadiga marka cuntada la burburiyo. waxay dhaawici karaan unugyada jirka waxaana laga yaabaa inay wax ka geystaan cudurka. inkastoo ay faa'iido leedahay shukulaatada madow haddana waxaa ku badan kaaloriga iyo dufanka ama duxda sida awgeed waa muhiim in laga cuno qiyaas go'an. lowska almond oo ka mid ah lowska waa il aad u fiican oo laga helo vitamin E. waxaa sidoo kale laga helaa macdano badan ay ka mid yihiin manganese, magnesium iyo fiber. xaddi yar oo gacan ku qabasho ama koob ribci oo almond waa mid faa'iido weyn u leh caafimaadka habdhiska dheefshiidka iyo guud ahaanba habka difaaca ee jirka.